wax ka baro taariikhda calanka buluugga ee Soomaaliya. waxaa la ogaaday in markii ugu horeysay ee calanka buluugga ah oo dhexda kula xidigta cad ee shanta gees leh ay ahayd 23 bishii Diseembar 1810. dadkii deganaa galbeedka Florida ee dalka Mareykanka oo Isbaanishku u gumaysan jiray ayaa isticmaalkii ku kacay burburiyayna wixii mood iyo noolba Isbaanishku lahaa, waxaana dhulka ay soo dhigeen calankii boqortooyadii Isbaanishka iyagoo oo saaray calanka buluugga ah oo dhexda uga taalo xidigta cad ee shan geesleyda ah, kaas oo waqti xaadirkan ah calanka Soomaaliya. 10 bishii Diseembar isla 1810 dalka Mareykanka waxaa la wareegtay dowladda cusbeyd ee Florida oo la oran jiray Republic of West Florida, waxaana soo dejiyeen calankii buluugga ah oo ay ku bedeleen calanka hadda ee dalka Mareykanka. asal ahaan waxaa lagu kala duwan yahay ciddii bulshada u soo bandhigtay calanka buluugga ah ee Soomaaliya, waxaase mid kasta sheegtay laba muwaadin oo Soomaaliya oo la kala yiraahdo Cabdilaahi Ciise iyo Maxamed Cawaale oo mid kastaba taariikhda iyo buugtu ay sheegto. waxaase markii ugu horeysay calanka Soomaaliya lagu dhex arkay Soomaaliya gudaheeda 12 Oktoobar 1954. waxaa lagu micneeyay in calanka buluugga ah uu yahay cirka xidigta cad ee shanta gees lihina ay ka dhigan tahay shanta Soomaaliyeed ee gumaystuhu kala jajabsaday ama kala qaybiyay, balse xaqiiqadu taas aad ayay uga duwan tahay. calanka buluugga ahina wuxuu leeyahay taariikh ka facweyn sidaan. muddo kadib markii dagaalkii sokeeyay uu ka bilaabmay Mareykanka ayaa dowlad goboleedyadii Mississippi ka goosatay dalka Mareykanka lana soo baxday calanka booriyo blue flag oo calanka buluugga ah oo awal meel iskaga teeriyay dib u soo nooleysay calanka buluugga ah ee xidigta shanta gees ku leh ee cadaanka ku leh dhexda. sanadkuna wuxuu ahaa 1860 halkaas oo ciidamadii koonfurta Florida gaar ahaan ciidankii Texas ay wateen calanka buluugga ah. dowlad goboleedyadii ay markaa dhidibka u taageenna ay calanka rasmiga ah uga dhigeen calanka buluugga ah ee hadda ay leedahay dowladda Soomaaliya. bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ilaa iyo waqti xaadirkan waxaa la isku haystaa cidii hindistay calanka Soomaaliya ee buluugga ah. haddaba su'aasha yaabka leh ee isweydiinta mudan waxa weeyaan, taariikhda calanka Soomaaliya miyay khaldan tahay oo 53 sanadood calan koobi ah ayaa ka dalbabanayay dalka Soomaaliya? kul haddii xaalkuba sidan yahay iyadoo oo Soomaalida lagu xanto inaanay dhowrin xuquuqda daabacada iyo lahaanshaha maskaxeed, fikir iyo xuquuqda mulkiyadda toona, calanka Soomaaliyana yahay kii West Florida xilligii gumaystihii Isbaanishka, mise horaa loo cadeeyay in calanka Soomaaliya yahay gacanta labaad oo Mareykanku uu horu siiyay Soomaaliya. شقي